السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا وركي قولة تي في قدوميها قولها شعبك بارلمانك فدرالك الصومالية محمد المرسل عبد الرحمن أو رئيسي سي إذاعة بي بي سي دا ayaa sheegay inaan lagu darsan karin muddo kororsi dowladda federaalka Soomaaliya. Booliska Mozambique oo kooxda Al-Shabaab ku eedeysay in 52 ruux ay ku dileen dalkooda. Jubbaland oo sheegtay inaysan soo gaarin lacagihii loogu deeqay maamulada goboleedyada dalka. Masaajid ku yaala Daarul Hijra MBL Minneapolis oo aadaankii salaada dibadda loo soo baahiyay loo ogolaaday. Puntland oo iska fogeysay inay xayiraad ku soo rogtay ganacsiga gobolka iyo dalkaba. Kenya oo gubtay shixnad kalluun ah oo Soomaaliya laga keenay. wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya ugu digay ganacsadaha inay maciishada kor u qaadaan. U soo dhawaada warkii oo fidsan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in baarlamaanka uu furmi doono 5 bisha, wuxuuna sheegay in shaqo badan ay u taalo baarlamaanka iyo dalkaba. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in shuruuc badani ay u taalo baarlamaanka isla markaana ay muhiim tahay in bisha soo aadan uu furmo kala fadhiga baarlamaanka si sharciyada horyaalla ay ugu doodaan. Qasab in baarlamaanka uu furnaado horaanta bisha shanaad, waxaana la socotaan in baarlamaanka uu ansixiyay sharcigii doorashooyinka qaranka. Sidoo kale guddiga doorashooyinka qaranka waa inay hor yimaadaan baarlamaanka dhammaan bisha shanaad si ay u sharaxaan doorashooyinka iyo qaabka ay u qabanayaan, ayuu yiri gudoomiye Mursal. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa sheegay in aysan jirin wax muddo kororsi ah, waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in doorashooyinka ay dhacaan. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa iska fogeysay inay xayiraad ganacsi ku soo rogtay ganacsiga dalka Soomaaliya iyo Puntland u dhaxeeya. Guddiga coronavirus ee Puntland ayaa markan u jawaabay hadal 2 maalin ka hor ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ku eedeeyay madaxweynaha Dani inuu amray in aan wax raashin ah loo safrin meel ka baxsan Puntland. Wasiirka duulista iyo hawada oo ka tirsan guddiga ayaa sheegay Puntland inay diyaar u tahay inay fududeyso ganacsiga iyo gargaarka u kala gooshaya Soomaaliya xilliga lagu jiro dagaalka Kofi Annan iyo gudashada bisha Ramadaan. Wasiirka kalluumeysiga Puntland Faarax Cawaash ayaa isna sheegay xayiraadda lagu soo rogay isku socodka gaadiidka in aanu qusaynin gaadiidka xamuulka ah ee u kala goosha Puntland iyo gobollada dalka. Maamulka Jubbaland ayaa shaaciyay in weli lacago ay dhowaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu ku amray in lagu wareejiyo maamulada dalka si looga hortago cudurka Kofi Annan corona. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubbaland ahna gudoomiyaha guddiga kahortaga corona Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay inaysan waxba na soo gaarin lacagihii dowladda ay ballan qaaday. 1 milyan ayaa la sheegay dhowaanna weli ma hayno wax na soo gaaray. Lacagahaasi weli annaga nama soo gaarin, shilina kama hayno. Lacagaha dowladda ay ku dhawaaqday ma naqaano waxa ku dhacay, waxaana ka codsanaynaa in lacagahaasi nala soo gaarsiiyo si aan wax ugu qabanno cudurka. Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdiqaadir Maxamuud Luga Dheere ayaa baaq u diray hay'adaha caalamka inay gargaar ula soo gaaraan Jubbaland, wuxuuna sheegay in deegaankan ay joogaan barakacyaal
isla markaana muhiim tahay in la caawiyo bisha Ramadaan. waxaan ay ahayd markii ra-iisul wasaare xasan cali khayre amray in wasaaradda maaliyadda inay maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay ku wareejiso midkiiba $1 milyan si looga hortago cudurka coronavirus. Maamulka Jubbaland ayaa ah maamulkii ugu horreeyay oo sheegay inaysan weli helin lacagaha looga hortagayo coronavirus ee dowladda ay ballan qaaday inay siinayso maamulada dalka, waxaana sidoo kale aan la ogeyn in lacagahaasi ay gaareen. Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Cali Xasan ayaa ganacsatada Soomaaliyeed uga digay inay qaaliyeeyaan maciishada waddanka, waxaana uu sheegay inay tallaabo laga qaadi doono ganacsatada macaashka ka dhex raadinaya xaaladda oo adag ee waddanka ku jiro, maadaama ganacsatada loo sameeyay canshuur dhaaf 100% ah, weliba badeecadaha qaarkood oo canshuurtii laga dhimay 50%. Wuxuu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay u naxariistaan shacabkooda, isla mar ahaantaana ay maanta garab u noqdaan shacabkooda maadaama waddanka uu ku COVID-19, isagoo sidoo kalena ku booriyey inay maalgashi ku sameeyaan wax soo saarka waddanka sida xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, waxyaabaha kale ee la halmaala si looga maarmo waxyaabaha dalka dibaddiisa laga soo dhoofinayo. Dowladda Kenya ayaa gacanta ku dhigtay oo gubtay shixnad kalluun ah oo ka kooban 12 tan oo laga keenay Soomaaliya si loogu iibiyo dalkaasi. Kalluunkaasi ayaa ku qiimaysnaa lacag dhan 5 milyan oo lacagta Kenya ah. Waxa uu ahaa kalluun si sharci darro ah lagu soo geliyey dalka Kenya. Hay'adda amniga Kenya ayaa sheegtay in kalluunka uu ku jiray 761 kiish ay koox ganacsato ah ka soo safriyeen magaalada Muqdisho iyo Kismaayo, waxaana lagu qabtay gobolka xeebta ee Lamu. Kalluunka wuxuu ku wajahan yahay magaalada Mombasa si ay booliiska noo sheegeen. Laamaha amniga ayaa dadweynaha hortooda ku gubay kalluunka, iyaga oo sheegay inay tillaabo adag ka qaadi doonaan ciddii isku dayda in ay mar dambe isku daydo tallaabo